haddii aad hore noogu xirnaan jirtay soo dhawow welcome back haddaad nagu cusub tahay fadlan riix subscribe si aad noola socoto sheer dheh si asxaabtaad uga faa'iidaysato like maaha lacaga noo saar please subscribe like and share thanks السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا السلام الصومالي محمد ملك استد أدونك كجوكتين وولاشين أبا حرسمة إيمار كلا إيتالدي تلادة أسبوعاً وحن كسو قادنا يا إن ير أو كسابسن مهمة إلا ذا هاي إن أن وقت قلنا أبد كيغا إن سيدا دولا سعتين با رمضانكي ونصوصوني الحمد لله رب العالمين إلهي هنقدقو كوا لغا أقبلو عبادوينكي إن إيدي بان صومرني إن حلقان أن شوغنو oo waan iidnay laakiin iidii caadiga ahayd oo la arki jiray ma aanan iidin waayo waxaa jira xanuunkan coronavirus iyo covid-19 marka waxay noqotay in sidaba loo iidaa la yiraahdo marka anagoo group ah waxaan go'aansanay inaan magaalada ka saarno caruurta oon meel kale geeyno meel xayawaanaadka adoo gaariga ku jira la aadayo oo la yiraahdo wildlife safari marka muhiimadda ay leedahay ubadka in la geliyo waqti oo lacag la geliyo muhiimadda ay leedahay weey waxaan maanta rabaa inaan ku soo qaato halkan marka muhiimadda ay leedahay in caruurta waqti la geliyo oo loo qoondeeyo lacag loo qoondeeyo waqti loo qoondeeyo sidaad waqti ula qaadan lahayd sidaad ayaga aad maaragtay investment ama u maalgelin lahayd iyaga waqtiga aad la qaadanayso waa maalgelin so dadku inta lacag meel dhigtaan oo guryo dhistaan oo waxma maalgashtaan waxa ugu fiican oon maalgashan karno wax weeyaan ubadka intay yar yihiin haddaynan maalgelin oo ayaga aanan waqti gelinin oo ayaga aanan waqtigeena la qaadanin oo aan ayaga dareensiinin in ay yihiin wax ayaga noogugu muhiimsan adduunka nolosha ilaahayna siiyey haddayan dareemin intay yar yihiin markay weynaadaan adiga kuuma baahna 18 maalintuu gaaro cunugaaga wuxuu yeelanayaa saaxiibadiis wuxuu yeelanayaa asxaabtiisa gaarigiisu wadanayaa jaamacad buu ka aadayaa yaaba adigu raacayaba yaaba adiga waqtigaaga yaaba u baahanba intay yar yihiin weeye marka ay yar yihiin weeye intay yar yihiin baahida ay noo baahan yihiin waa intay yar yihiin mar hadday weynaadaan waxay leeyihiin ajandahooda waxay leeyihiin programmadooda waxay leeyihiin waxooda markaan leeyahay waqti hala geliyo maaha waqti aanan la hubin waa in meel ka baxsan magaalada sanadkii hal mar horta caruurta inaad meel geyn karto vacation geyn karto lacag gelin karto tigidho u iibin karto wadanka ka saari kartid meelo kale geyn kadho programmo ku dari kartid laakiin intaad ayuuto gasho oo lacag aruursatid ood wadankii guri ka dhisatid wadankii guri aadan aqoon balaayo degaysa ubadkii intaad lacagtaadi ka qaado inaad wadankii geliso horta taas waa xaraam maqdac horta joojiya ayuutada la gelayo waa adoo nool oo lagu dhaxlayo guriga markaad wadanka dhistid wadankii markaad guri ka dhistid waayo ku in adeerka ah oo aanan axsaan kaaga haynin baa ku nool horta taa ogow marka arrintan ah adoo nool lagu dhaxal weeye horta guryaha oo wadankii laga dhisanayo horta ilmahan lugna inta inaad kula jirtid lugna aad wadan kula jirtid waarid haddaa tahay horta taas waa inay joogsato lama rabo waa inaad ilmihii halkanay joogaan ku nool yihiin maskaxdooda iyo fikradooda horta wallahi American ilmaha ma dhaanto taas haddaad runta isku sheegtid waad ogaanaysaa marka waxaa la rabaa inaad ayaga lacagta aad haysid eed ayuutada ku galayso oo aad wadankii rabtid inaad guryaha kaga dhisatid horta kow iyaga geli xaq ayaga kaaga mudan adoo nool lagu dhaxalkan ah in guriga wadanka aad ka dhigisatid oo cid aadan ogeyn maanta ay ku manaafacaadsanayso abaalna lagaaga haynin taas ay joogsato lacagta ilmaha geliya programmo ugu sameeya intay yar yihiin investment ku sameeya waqtiga hadda ay ku baahan yihiin wallahi waa markay yar yihiin 18 ka hooseeyaan 18 hadday ka kormaraan laguma baahno taas iska dhaadhiciya waqti muhiim ah ilmihiina geliya quality time markaan iri 6 sac meel ah aan u sii dareef gareynaynaayo magaalo kala ilmihii geynaynaayo dee wixii markaas aan samayn karna caruurta aan la samayno wallahi waxaa la yidhi dee malaha waa soo waalanaysaayo dee ma 6 sac meel loo dareef gareynayo ma waalatay see ilmaha fan loogu geeyaa oo maxaa kaloo haysatiin waa markaan oranayo oo waxyaabaha kalaba waa qaban jirteen lacag iyo maalna waad gelisiine ubadka labada bilood oo guryaha ay ku xirnaayeen haddayba u baahan yihiin in laga saaro war 6 saac sheegtay 10 saac aan dareef gareyno maxaan kaloo haynaa marka walaalayaal muhiimadda hadalkaygu wuxuu yahay ubadka waqti hala geliyo intay yar yihiin bay ku baahan yihiin oo noo baahan yihiin intaas aan waqti gelino
mar hadday 18 gaaraan oo dhaafaan cidina kuma baahna ha isdaalin qalbiga yu ku xanuunin aniga waqti ma rabtid inaad ila qaadatid miya 18 jeer markuu gaaro ilmihii hadheen ma ku baahna 18 san markuu gaaro saaxiibadiis baaba uu waqti u hayaaba ha isdaalin adiga markii lagaa weynaado oo 19 iyo 18 lagaa gaaro yuusan qalbiga ku xanuunin sababta u dhahayo intay yar yihiin waqtiga geli waa waxaas 18 markay gaaraan iyo 19 adiga laguma baahno waxa lagu leeyahay hooyo aniga asxaabteedan la qaadanaya iid ku raaci maayo meelahan aan aadayno saaxiibaday baan raacaya 18 jir markay gaaraan iyo 19 jir kuma ee baahnaba maxaa isku daaline marka qalbiga uu ku xanuunin markay saas lagu dhaho hooyo iyo abo waa inaad fahantiin oo tiraahid waqtigooday ku jiraan xilligii asxaabtooda muhiim kala aheeday ku jiraan adiga marka calool xumaha isku ridin depression ya kugu dhicin waa inaad tiraahid waa waqti la soo wada maray dhanaa soo marnay caadi iska dhig lacagtu u baahan yahay si ilmahaas hadday gaari wadan karaan oo driver lesson leeyihiin gaarigoodii si waxa tirada hooy fan qaado I love you you know I'm happy maanta inaa gaarto xil adiga waxaaga samaysan kartid so enjoy hooyo see you later de be safe waa ku jeclahay allah ku badbaadiyo bye hooyo dheh sii dhunko maxaa ku geliyay ama haddii kale intaas saas dhihi lahayd waxaad tirahdaa allah anaa iska dhintay ma maanta anigoo dhalay oo anigoo intaas kugu soo maray ayaa itir waqti kulama qaadanay depressionkaas maxaa iskugu ride waa dhashay wuu ogyahay ilmaha way ku jecel yihiin laakiin waqtigooday qaadanayaan markii lagu dhaho hooy waqti markuu rabo inaan kula qaato asxaabteeda aniga muhiim ila ah dee asxaabtooda muhiim la ah adiga laguma nabca hooyoy abo adiga laguma nabca depression ha isku ridin qalbi xanuun ha isku ridin allah aniga seebaadan u rabin dee muu rabo inuu kula qaato waqti waa caadi xilligooday ku jiraan hooy caadi iska dhigoo dee adigu adba waad soo martay dhallinyarnimadooda maxaa ugu diide maxaa isaga dhigay adi shalay inaad ku dhalatay inaad hooyada hoosta kaga jirtid maalin walba hooyooyinkan waa jecelnahay dhallinyarnimada waa soo marnay kulligoon ilmaha maanta waa waqtigoodii marka qalbi xanuun ha isku ridin ilmaha qalbiga ha xanuunjinin maanoo hooyadaayoo ku jecel maxaa buufiskaas dhanba ku geliyey tartiibkaaga abaaya isdeji walaalow adigana aabo isdeji ilmahaana noloshooda u ogolaada waqtiga intay yar yihiin la qaata